mar walba waad akhrisaa aayadani laakiin se ma ogid sirta ku jirto mase taqaanaa calaaqada ee la leedahay geerida nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo da'diisa. daawada maanta waxaan kula wadaagi doonaa aayad aad maalin leyli akhriso laakiinse in badanoo dadka ka mid aysan ogeyn asraarta ku jirto ee xikmada iyo calaaqada ee la leedahay dhimashada nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo da'diisa. aayaddaasi oo ah وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. آياداسي وحكود حجرت كلمة نتوفينك أيام أجدنا ما أنت كلمة نتوفينك كلمة داسي قرآن كان سدح ملائكة جرتا سدح سورة وكلا مركا ما حيث هاي علاقة إلى لها جيريد النبي يدأ ديسا لما أنت نحن أقنا هاي إن كلمة نتوفينك قرآن كان سدح ملائكة جرتو waxa lagula hadlaayo ee lagula muqaatabayana uu yahay nabiga sallallahu calayhi wasallam. waxaan kaloo ognahay dhammaanteen noloshiisa markii la qeybiyo in saddex qayb ay aweyn tahay taasoo ah 13 sano u joogay mako 10 sano u joogay madiino iyo 40 sano nabinimada ka hor. marka ma ka helaynaa tiradani 40 13 iyo 10 kelimada natawafayanaka si kooban ma uga dhaxelaynaa? jawaabtu waa haa. kelimadani ka sheekaynayso geerida nabiga sallallahu calayhi wasallam waan ka helaynaa tiradaasi. aayadda koowaad waxaa weeyaan وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. سورة يونس آية تبنات. آية لواد محاويان وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. سورة الرعد آية سدحي تبنات. آية سدحات محاويان فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. سورة غافر آية أفرتنا هدان فيرنو لمبرد آياتها 40 10 13 waxaan helaynaa tirada in ay noqonayso 63 taasoo ah tirada ama da'da nabiga sallallahu calayhi wasallam uu jiray markuu dhimanayo oo 63 ah. allah subxaanahu wa tacaala aayadahani wuxuu dhex dhigay saddexdani aayad saddex suuradood oo kala ah annagana aan u malaynayno wax iska caadi ah markaad akhrinayso. laakiinse si fiican haddaa u eegtid oo u dhugato aayadahani waxaa ku soo bixi in ay tahay arrin cajiib ah oo xikmad ku dhisan tahay. suuradda koowaad ee aayadan ay ku jirto waxaa weeyaan suuratu yuunus. markii la fiiriyana suuratu yuunus halkay kaga jirto kitaabka qur'aankana waa suuradda tobnaad. aayadda ku soo aroortana kelimadaasi natawafayanaka ee suuratu yuunus ku jirtana waa aayadda tobnaad. taasina waxay ka dhigan tahay 10 sano ee nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ku noolaa uu joogay madiinatul munawwara. suuradda labaadna waa suuratu racdi. markii la eego aayadana lambarka ee kaga jirto qur'aanka ama kitaabka qur'aanka waa suuradda 13aad. aayadda ku soo aroortana waa aayadda ay ku jirto kelimada natawafayanaka waa aayadda 13aad. taasi waxay ka dhigan tahay sanadihii nabiga sallallahu calayhi wasallam uu joogay makkatul mukarrama oo dadka dacwada iyo tawxiidka uu gaarsiinayay. suuradda saddexaadna waxaa weeyaan suuratu ghaafir. markii la eego lambarkay kaga jirto kitaabka qur'aankana waa suuradda 4aad. kelimada ku soo aroortay ama aayadda ay ku dhex jirto kelimada natawafayanakana waa aayadda 4aad. taasina waxay ka dhigan tahay da'dii nabiga sallallahu calayhi wasallam nabinimada ka hor qabla albictha. suuradda 4aad aayadda 4aad. suuradda 10aad aayadda 10aad. suuradda 13aad aayadda 13aad. tan dambe ee suuradda ghaafir ah ee aayadda 4aad ay ku soo aroortay suuradda 4aad ay ku jirto waxaa weeyaan waa da'dii nabiga sallallahu calayhi wasallam nabinimada ka hor qabla albictha. daawade arrintaasi maxay kula tahay? allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay afasixrun haada am antum laa tubsiruun. marka daawada wax un haddaa ka faa'iidana sii gudbi si dadka kale walaalada ay uga faa'iidaystaan.
inta ayaan jeclaystay in aan idinla wadaago. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.